Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Daawada ku soo dhawaada Doobiyo Media barteena YouTube-ka iyo Doobiyo barta kale Facebook-ga. Waxaan idin soo gudbin doonaa ciyaarihii Premier League ee la ciyaaray iyo kooxihii ciyaaray guulihii kala gaareen. Guushii Liverpool ay gaartay isla markaasina warbixin ayaanu ka diyaarinay iyo Liverpool qaabta galabta u ciyaartay iyo dardarta ee wado waana idin soo gudbin doonaa. Sidoo kalena Chelsea oo ayadana kuftay Aston Villa dhaafi weysay. Arsenalna kulankii derbiga ahaa Tottenham London ayaa waxa uu noqday Arsenal mid ay baxsan weysay. Shabaqa markuu ay soo taabato waa laga taabtaa oo barbardhac isla dhaafi waayeen. Macalinka Liverpool ee Klopp ayaa ammaan kala duldhacay 32 jirkani ee difaaca Liverpool ugu ciyaaro. Matip maxay tahay ammaantaasi? Warbixin ayaanu ka diyaarinay waa idin soo gudbin doonaa. Balse adigana daawanayo haddii tahay booqashada koowaad aad soo booqato YouTube-keena Doobiyo Media ana subscribe fadlan ha hilmaamin calaamada gudaha subscribe-ka inaad noo taabatid gambareelka furatay si aan macaamiil joogto u noqono. Sidoo kale barta Facebook haddii follow-na soo dhihin fadlan follow-na soo dhihin nagu soo biir asxaabtaadana la sii wadaag ee u sii sheergaray mahadsanid. Aanu ku bilownay garoonka Anfield ee Liverpool galabta waxaa ku soo booqanaysay dhigooda West Ham ciyaar ka tirsan horyaalka Premier League. Ciyaartaasi ayaa waxay ahayd mid aad loo wada sugayay balse 3-1 ayaa lagu West Ham markii 16 daqiiqo socotay. Shabaqeeda waxaa soo salaamay isla markaasina gool kulaad ka dhaliyay Mohamed Salah kadib 18 diilinta ganaaxa oo qalad asiga lagu galay. balse West Ham waxay dhahday waana diidnay intaan la nasanin qaybtii hore ayay barbardhac ciyaartii ka dhigtay isla markaasina shabaqa laga soo taabtay Liverpool waxaana halkaasi lagu nastay 1-1 markay ciyaarta halkaasi ay marayso. balse daqiiqadii 60aad ee qaybtii labaad ayaa waxaa halkaasi ka dhalatay in shabaqa ee Liverpool tagto. wiilka xawaaraha dheereeya ee Liverpool weerarku uu ciyaaro muddooyinkii dambena isbaray macalinka Liverpool ee Klopp isla markaasina lagu magacaabo Nunes ayaa daqiiqada 60aad shabaqa taabtay kadib Alex kubad ka imaado caawin ahayd waxayna halkaasi ka naqatay 2-1 oo quusta gelisay West Ham. sidaas darteedna Liverpool way sii xawaareysay. jamaahiirtii taageeraha u ahayd ayaa Liverpool garoonka We Never Walk Alone ayadoo sii hayso ayaa Jota kubad kale fandaag caawin ka imaaday shabaqa dhigay 90kii daqiiqana garsoorkii hay oo ku soo afmeeray 3-1 oo Liverpool marti gurigeeda ugu ahayd uu imaaday West Ham oo guuldarana la hoyay caawa. dhanka kalena Klopp shirkiisa jaraa'id oo qabtay ayuu ammaan kala duldhacay Matip difaaca Liverpool kadib ciyaarihii maqnaashihii oo fursadda uu ka helay. Van Dijk ayaa waxa uu sheegay in uu si weyn wax ugu daboolay 32 jirkani ayaa waxa uu ku ammaanay in maalmihii ugu dambeeyay safka hore ka soo muuqashadiisa ee Liverpool iyo guulo waaheed ayadoo ugu horeysay ciyaartii hore ee ciyaareen Van Dijk markuu uu maqnaaday. waxaana iminka uu sheegay booska qaladaad badan iyo daboolis badan baahi loo qabay ayuu imaaday. Matip ayaana waxa uu ka mid ahaa kuwa aan joogtada ahayn waxaana Liverpool maxda shaxda oo ciyaarihii ugu dambeeyay 3 ahayd Klopp uu ku sameeyay mid isbedel ah ay naqdeena in Nunes iyo Luis Diaz iyo Mohamed Salah ee mararka qaar shaxda hore laga waynayay. balse waxay naqatay in Kanuta soo kicitaankiisa hadduu imaado uu naqanayo mid kale oo ku way karo Matip booskiisa ayaana soo baxday. waxaana sidoo kalena dhacday in Gomez nasna ku jiro xusulduub. London derbigeeda Tottenham iyo sidoo kale Arsenal garoonka Arsenal ayaa marti lagu ahaa waxaana isla dhaafi waayeen 2-2 kadib markii ciyaartii 16 daqiiqo ama 26 daqiiqo socotay gool iska dhalisay Tottenham. sidaasi niyadda ayadoo ku lahayd ayaa waxay dhacday in Arsenal laga daba yimaado oo indha yarkii Son u dhaho maxaa dhacay in laga hormaro waa diidanahay.
balse saaka goolkulaad uu helana ayaa waxaa dhacday in uu marka uu dhaliyana Son isna uu diido. Arsenal waxay u muuqataa in ay ka gudbi weysay darbigii ciyaartii ahaa ee ka wada dhisnaayeen London ee Tottenham. wiilasha buluugga ah ee Chelsea ayaa galabta gurigeeda Aston Villa ku martiqaaday si ay wada ciyaaraan ciyaar ka tirsan horyaalka ee Premier League. Chelsea ayaana ciyaarta qaybteeda hore u muuqatay inay fursado khasaarisay, walow ciyaaryahano fara badan isbedel qarash badan la geliyay Aston Villa loo haystay qaybtii horeba in darsin golol ah loo dhiibayo. waxaa dhacday Chelsea ee sidaasi 73 daqiiqo markay maraysay golahyahaga shabaqaaga oo waardiyaha ka ahaa la soo taabto, sidaasina ciyaarta in 1-0 loogu hogaamiyo. waxaana dhacday in waqtigii loogu talagalay kama dambaysta garsooraha Serie ku dhawaaqay ay goolkaasi oo qura lagu leeyahay Chelsea la dhaho la hooyo guuldarrada garoonkaada nagu martigelisay. guud ahaan intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa tan iyo mar kale intaan kulmi doono. waxaa idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.